guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta Mira Cawaale ee magaalada Garowe ayaa kulan mahadcelin ah la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo dhaqaale lacageed ku taageeray dhismaha garoonka Mira Cawaale sanadkii la soo dhaafay 2011 isagoo safar shaqo ku joogay magaalada Garowe ee gobolka Nugaar. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa guddiga ka dhageystay warbixin ku aadan halka uu marayo dhismaha garoonka Mira Cawaale ee magaalada Garowe. waxa uu muujiyay ahmiyadda garoonkan uu u leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo isdhexgalka bulshada ay hormuudka u yihiin dhalinyarada ku nool deegaanada Puntland. gudoomiyaha guddiga dhismaha garoonka Mira Cawaale Maxamed Cali Ciise Ciro ahna gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Puntland ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ugu mahadceliyay taageerada iyo garab istaagidda buuxa uu u muujiyay bahda ciyaaraha iyo kaalintii mugga lahayd uu ka qaatay dhismaha garoonka Mira Cawaale. halkan waxaan u nimi ra'iisul wasaaraha ugu nimi insha Allah inaan u mahadcelino doorkii uu ku lahaa ka qayb qaadashadii mugga lahayd oo kaga qayb qaadatay garoonka kubadda cagta ee Mira Cawaale. ra'iisul wasaaruhu waa nin dhalinyaro ah insha Allah waxa garoonka ku ciyaarayana boqolkiiba 99 waa dhalinyaro. insha Allah waxaan rajaynaynaa intaasi in ka badan ba inuu ka qayb qaadanayo ama uu ballan qaaday. maanta waxay noo tahay farxad farxadaasna waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan la wadaagaynaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah Soomaaliya oo mid ah ra'iisul wasaarahana waxaan ka filaynaa insha Allah Soomaaliya oo midaysan. waxaanuna aad ugu mahadcelinaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba qaybtii uu ku lahaa garoonka kubadda cagta Mira Cawaale sidoo uga qayb qaatay. insha Allah waxaan rajaynaynaa sidaan horeba idinku sheegay inta iyo in ka badanba inuu ra'iisul wasaaruhu ka qayb qaadanayo una ballan qaaday haddii la haydmo garoomada Soomaaliya dhalinyarada oo dhan inuu ka qayb qaadanayo sidaas oo cadeeyay insha Allah ra'iisul wasaaruhu. annaguna aad baan ugu hambalyeynaa waanuna taageersanahay waanuna soo dhaweynaynaa.